السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابta qiimaha iyo qaayaha leh dhammaantiin meel kasta ood igala socotaan ood igala soo xiriireysaan waxaan idin leeyahay salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu barnaamijkayga maanta wuxuu ku saabsan yahay murugadii qaraxa soobe oo aan ku weyneyn boqolaal Soomaaliyeed intii dhimatay dhammaan Allah u naxariisto intii dhaawacana Allah u boogadhayo murugadaas darteed ayaan maanta usoo galay oon doonayaa inaan program yar kusoo qaato haddii ilaa yiraahdo intaan waqti hadalkayga u gelin waxaan idin leeyahay dhammaan samir iyo iimaan Allah ha siiyo intii ehladooda ay ku nafweysay oo aan ka mid ahay qudheedaba waxaan si khaas ah halkan uga faa'iidaysanayaa oo aan uga tacsiideynayaa dhammaan reer Cali Dhiid meel kastoo ay joogaan daafaha dunida iyo reer Macallin reer Cabdiraxmaan Macallin iyo reer Aadan Macallin iyo dhammaan ummada reer Sheekh Cabdiraxmaan iyo ummada Soomaaliyeedba intii ehelkoodii qaraabadooda meesha ku weysay waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo wixii dhaawacana Allah inoo boogadhayo insha Allahu tacaala inta dhimatayna ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo hadalkayga intaan u gelin marka ugu horeysa ilaah baa inaleh ilaah baynu u noqonaynaa ummadda islaam ayaynu nahay sorry ma dhehayno wax kasta oo nagu dhaco ma dhehayno sorry kullu nafsin daa'iqatul mawt weeyaan nafsad kasta way dhadhaminaysaa muxuu ahaa mawdka iyo geerida way dhadhaminaysaa innagana kuwii samir iyo iimaan ilaahay ku irsaaqo Allah inaga dhigo intaa dabadeed waxaan doonayaa inaan usoo galo Soomaaliya way la hartay qaraxyadan way la hareen in ummadda la iska qarxiyo bilaa maxamed darro iyadoo ujeeddo gaara la leeyahay way badatay wax soo dabar jarmaya iyo wax dhammaanayana ma ahan ujeeddo laga leeyahayna kulley ciddii samaysaa garanaysa waxaan ani laakiin ka yaabay anoonan ku fogaanin oon meelo badan taabanin waxaan ka yaabay qaraxa daroonkii Turkida ma aha qaraxu ma aha daroonkii Turkida uu haystay ay muxuu ahaa qabanaynin satellite-da caalamka ee dhan ay qaban waxba aysan qabanayn ma qaraxan muqdisho unbaa wadooyinkiisa unbuu soo maray uu kusoo socday oo lagu dhex sameeyey oo lagu soo dhex habeeyey oo lagu soo diyaargareeyey dad ku soo wadeen checkpointyadan uu soo maraya qaraxa ma wada shaqeyn baa kala dhexaysa taasaan isweydiiyey inuu qaraxu muxuu ahaa degmo to degmo isu dhaafo oo sida loo wada bartii loogu talagalay buf lagu siiyo waxbaa ka dambeeya oo diyaar waa in qaraxaas u dhaco marka waxaa kaloo isweydiin mudan haddaynu nahay qolo islaam ah oo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah leh oo diintoodu ay islaam tahay oo kutubkeena ku dhaqan oo furqaan yahay oo nin Soomaali isku wada nahay gidi haddana oo maantana la yiraahdo waa dal islaam oo diin islaam haysta macnaha ku jira maxay tahay inuu qarax inta lasoo maleego lasoo xirxiro oo wadankii lagu soo dhex hagaajiyo lasoo fududeeyo checkpointyada laga soo gudbiyo dad aan waxba galabsan oo iska fadhiya meel restaurant iska fadhiya ama howlahooda gaarka iska socda islaan dhar inay soo maydha doonaysa qof shaqadiisa soo aaday qof muxuu ahaa gaari gacan sita qof xamaali ah qof bajaajla dad iska wada tamar daran oo guryahoodii u soo baxay qutulyoomkii raadinaya bush in lagu siiyo bal jannada lagu dhawaanayo taana noo sheega ana macno ma fahmin ilaahay subxaanahu wa tacaala muusan dhihin nafsadii nafsad xaq darro u disha oo ka xariman cadaabteeda inay muxuu ahaa ay mudan doonto jahannamo oo naar mudan doonto ilaahay muusan noogu sheegin qur-aanka yaa fasaxay in nafsad islaama ay nafsad islaama goyso oo haddana la yiraahdo dhiigiinaan diinta islaamka ugu dhawaanayna qof islaam oo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sallallahu alayhi wasallam leh oo meel fadhiya oo waxba aanan ka hadlayn danihiisa gaarka ku maqan ood qarxisay oo naftiisii iyo dhiiggiisii wixiisii dhan aad banaysatay miyaad ilaahay ugu dhawaan ilaahay waad uga fogaan marka waxaan dhihi lahaa Soomaali way maratay intii la dili karo waa la dilay waxa hadda socdana oo wada meyd noolayaal waxaan la soo wada habeeyey oo bug lagu siin doono marka dambe hadaan tahlukada meel looga soo jeedsanayn
marka ugu horreyn horta waxaan ugu baaqayaa dowladda waddanka ka talisa waxaan ugu baaqayaa waan jeclahay in kilibkayga gaaro anoo eedeynayn waxaan kula talinayaa dowladdaas in ay u fiirsato hadday wax qabanayso hadduusan wax qaban karinna walaalkay marna muxuu ahaa kolley cid iiga dhow ma jirto madaxweynaheena la hadlayaa iyo dhammaan inta talada haysa ani ku duri maayo xumaanna ugulama jeedo laakiin waxaan ku leeyahay maadaama adiga aad mas-uuliyaddii waddanka qaaday ood maanta madaxweyne u tahay iyo dhammaan inta adiga kula midka oo kaa hoos shaqaysaba waxaan ku talin lahaa meelaha uu kasoo gudbayo qaraxa oo lasoo khafiifiyo lasoo wado aan loo eegeyn oo la iska soo gudbinayo oo xarunta bug lagu siinayo dadka shaqaalaha oo ka shaqaynaya oo loogu talagalay inay amniga sugaan indha gaara u lahow haddii kale waxaa imaanaysa in adiga beritoole lagugu qarxiyo ilan waa lasoo khafiifinayaa waa lasoo fududaynaya waa lasoo fududaynaya waa lasoo fududaynayaa ummadan waxba galabsanaa bug lagu siinaya iyadoo laga yaabo in hal shaqsi loo dan leeyahay oo madaxa oo la doonayo in dadkan lala galaa marka jaalla madaxweyne iyo dhammaan inta ra-iisul wasaare inta xukuumadda ku jirta waxaan dhihi lahaa ka tala ahaan anoo baanad soomaaliyeed ah cidaan kasoo horjeedana ma jirto laakiin waxaan kasoo horjeedaa in ummad la halaago islaam oo meel aan waxba galabsan in la halaago waan kasoo horjeedaa xataa aakhirlam saacadeeda hadday tahay oo tayada ugu dambeysa ay tahayna xataa inaan kala baqda maaha waxaan ku talin lahaa in qaraxyadaas ummadda halaagay oo soomaaliya ay noqotay muxuu ahaa sidii afghanistan iyo ciraaq iyo dadkan carabta wixii laga soo minguuriyey ayaa waddankeena lagu dhaqayaa iyagaa laga arki jiray muxuu ahaa infijaar iyo sayaaro mufaqaqa iyo balaayo iyagaa laga maqli jiray hada soomaaliya loo soo raray marka waxaan ku talin lahaa waa haddii aniga laga yeelaya in dad badan oo ila midoo igu fikiraan way jiraan waxaan anagana baabiinayana dilaya waa qaraxana ma ahan daroontii turkiyada waan ku celinayaa jaala madaxweyne jaala ra-iisul wasaare dhammaan wasiirada dhammaan xildhibaanada dhammaan ummadda soomaaliyada caqligooda shaqeynaya waxaan leeyahay qaraxyadan lasoo khafiifinayo oo dadka lagu qarxinayo oo aan loo fiirsanayn la baarayn la istaajinayn wayna galaafteen nafaf badan oo nagu qaaliyay galaafteen marka waxaan dhihi lahaa intaa inay nooga harto hal la suga amniga dad badan ha lagu soo daadiyo muxuu ahaa dheeraad xataa ha loo keenaan dhihi lahaa meel kasta oo jackpointi ah wax lagu baarayo ee kastara kusoo dar ayaan dhihi lahaa maxamed jaala madaxweyne u fiirsan insha allahu tacaala waan aaminsanahay inaad ka xun tahay dhibtan ummadda soomaaliyeed haysata laakiin 2 jibaar 3 jibaar intaysan beri adi gurigaada kuugu iman xagga bugtaas aadna agtaada bugay noqon haddii kale mustaqbalka marka waxaan dhihi lahaa biyo intay kaa fog yihiin ayaa la iska moosaa moos badan hala sameeyo waxaanina sidii loo wajihi karo ummadda soomaaliyeed oo dhanna waxaan dhihi lahaa farka liifool ma dhaqdo madaxda iyaga waa gruub yar oo kooban oo koox ah wax walbana may xallin karaan marka shacabka soomaaliyeed oo soo sheega meeshaad ku aragtaan wax la malmaleegayo iyo wax la xirxirayo iyo wax la buuxbuuxinayo meeshaad ku aragtaan soo sheega haddii kale qaraxaas ma kala yaqaan reer hebel iyo reer hebel ummadda oo dhan way ku wada maran marka insha allahu tacaala intaasaan ku talin lahaa waa anigoo ah Hidde Ibrahim Nuur anagin shaxshaxley sida la yaqaano dhammaan mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay samariya imaan allah naga siiyo intii dhimatay inta dhaawacana allah inoo booga dhayo dhibtana inta allah nooga ekeeyo insha allahu tacaala marar kale oo aan jaanis fiican haystana waan soo geli doonaa inta waxaan uga maqnaana dee anoon xamili karin labadii maalmood oo lasoo dhaafay boqodheennaba ayna soo gaartay oo 2 wiil oo qaaliya oo midna uu ka tagay UK midna uu Muqdisho joogo iska shaqaysanayay meesha nooga galeen oo lagu qarxiyay maxaa maqaayadii Fatxi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aan leeyahay ehelkana mar labaad mar saddexaad halkan aan iyagana ugu tacsiyadeynayaa khaasatan waxaan halkan ugu tacsiyadeynayaa dimaashadii qaali shukri siido xasan shukri sharaf oon leeyahay qaaliyay ilaahay subxaanahu watacaala abuwa samre imaana naga siiyo adigana caruurta allah kula hayo insha allahu tacaala oo ku soo barbaariyo barwaaqo oo dhanba insha allahu tacaala aan ku rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo dhaga la socotaan idinkan waxaan leeyahay salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu